jir markuu ahaa ayuu qur-aanka barashadiisa bilaabay 19 jir markii uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeedhay intii barashada cilmiga uu ku jiray sayid maxamed cabdalla xasan meelihii uu soo maray ee uu tagay waxaa ka mid ahaa magaalada Harar ee dalka Ethiopia Muqdisho Suudaan iyo Maka intii uu joogay Maka waxa macallin oo noqday amaba uu ku xidhmay sayid maxamed Saalex oo dariiqada saalixeeda isagu ku abtirsato sayid maxamed cabdalla xasan markii uu berbera ku soo laabtay dhulka Somaliland waxa ugu horeysay dariiqada qaadireeda oo Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani uu ku sameeyay magaalada Baghdad ee waddanka Ciraaq dhulka Soomaalidana waxa hormood ka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Zaylaci iyo Sheekh Huways Maxamed sayid maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiya waxa uu bilaabay ololo uu Ingiriiska kaga saaray dalka isagoo oo huwan dariiqadiisa saalixiyada sanadku markuu ahaa 1899 bishii Abriil waxa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa 3,000 oo nin 1 September sanadku markuu ahaa 1899 waraaq uu soo diray qusulkii Ingiriiska xeebaha Soomaalida ugu qaabilsana waxa sayidku Ingiriiska uu ku eedeeyay inay cadaadinayaan islaamka waxana uu cambaariyay kuwa gacanta siinayay warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku imika idinku kala doorta haddii aad dagaal doonaysaanna waa ogol haddii aad nabad doonaysaanna ganax bixiya maalintaasi ayaa nin fallaaga loo qoray 20 sannadood oo dagaal kula jiray Ingiriiska Talyaaniga iyo Ethiopia ayaa markaasi bilaabmay haddaba bal aan idinku wareejiyo aw jaamac Cumar Ciise oo inoo sheega sida sayidku uga baxay berbera ilaa iyo intii ay dagaalada isaga hor yimaadeen Ingiriiska anigoo soo koobaya sayidku dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay wuxuu ka bilaabay berbera sida la leeyahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin baadariyi isagoo inama dhowra 5 iyo 6 dabada ka wada suuqa marinaya ayuu arkay markaasuu yiri war waxa kan waa maxay ee waa diinteennii la soo galay labada dhagax buu qaatay baa la yiri wuxuu ku dhiftay gaalkii meesha joogay oo baadariga ahaa wuxuuna yiri ilaahu maantay intaasan awooda culamadii reer berbera hadallada la isku jiiray oo dhowr erayo uu sheegay oo yiri baridu waa xaraan qaadku waa xaraan iyo waxyaabo kamida ayay xoogaa yarahee arrintii la isku maandhaafay markii dambena xaalkiisii magaaladii waa ku fiday oo magaalada berbera wuxuu ku noqday nin caan ah oo wax soo wada nin la oran jiray allahu naxariistay awgaas ayaa xaalkiisii markuu eegay wuxuu yidhi wali ninkan haddaan maanta la qaban meel fog baa laga dooni waa la dacweeyey adigu markuu dareemay inaan magaalada xoogaa yarah laga jeclayn ama wax ugu soo roobi karin waa ka baxay wuxuu sii maray dhaymoole iyo majacase oo ay ka furayd maaragtay muxuu ahaayey 2 iskuul oo baadariya oo ciyaal agoona iyo lagu ururiyay wax lagu baraayay inan buu u yeeray wuxuu yidhi adeer magaca wuxuu yidhi John baa la yiraahdaa waagii hore maxaa lagu oran jiray cali sidaas ayuu u sii dhaafay baa la yiri wuxuu yidhi maanta matanay joogtaa sheekh wuu sii maray Suldaan Nuur Axmed Ammaan ayuu wuxuu ugu tagay ood weyne wuxuu sii socdaa maxaa yeelay hadalka ayaan soo koobi dabadeedna qolyahaas habar yoonista xoolo badanna waa siiyeen aad iyo aad bay u kaalmeeyeen waana la isafgartay wuu ka tegay xoolihii isagoo wata wuxuu tegay meel la yiraahdo qoryo weyn oo magaalada Burco koonfur bari kaga toosan halka ayuu ka aasaasay horey buu uga gudbay wuxuu sii gudbay xagga bariga Buuhoodle iyo halkaas uu tegay adigu meesha markuu joogay xoogaa khilaafiye yar baa dhacay dhowr nin oo dhulbaanta oo garaad cali uu ka mid yahay ayaa meesha ku dhintay horey buu uga tegay markii halka uu eegay dad badan baa raacay adduun badan baa raacay rag iyo maaragtay xoolo isagoo wata wuxuu u kacay dal ugaadeen malaha qaaqul buu ka baqay xagga maaragtay nugaasha iyo dhulbaanta in garaad cali dilkiisii wax kaga yimaadaan wuxuu u tegay nimanka la yiraahdo Maxamed Subayr gurdume meesha la yiraahdo ayuu xaruntiisii ka dhigtay halkaasna muddo ayaa la wada shaqaynayay hase ahaatee xoogaa ayaa markii dambe takhalal ayaa dhacay arrintuna waxay ka bilaabatay nin bahgariya ayaa markii hore loo diday oo la oran jiray jijiile markaasaa nin kaleeto ayaa meesha lagu dilay la yiri waa xujoobay la oran jiray shida dhabar jilic oo xoogaa boqor ahaa goor galaba ayaa uu raggiisa intuu ka haystay dibadda ula baxay markuu xaruntii ka baxay meel maraayay wuxuu yiri war shida dhabar jilic jijiile ma u argala guraasa xaaji cali ayaa la socday oo aanu markii hore arkayn hadalkii ayaa maaragtay muxuu ahaayay xoogaa magaaladii galay
dadkii waa la maqlay war ninka kanu ma aha baa la yidhi nin maaragtay muxuu ahay u socda diin fidinteed iyo wax kaleeto xoogaa yarahee halkaa waa laga diday rag baa u tashaday waxay markaa dooneen nimankii maxamed subayr khaas ahaan reer cabdille inay ninkaa ka takhallusaan oo dilaan shirqool bay u sameeyeen waxay yidhahdeen sayidii intaad noo timi laguma dabaal degin waa ku dabaal degaynaa soo baxo marka balliga imow balligii markii uu yimi fardihii baa loogu dabaal degay markii la rabay in maaragtay muxuu ahay la dilo ayaa nin la ohan jiray garaad ahaayo reer haaruun ahaa ayaa u digay wuxuu meesha shirqool baa lagaga wadaaye iskaga bax aw cabaas nin la ohan jiray ayaa halkaa lagu dilay dhulbahanta ah oo bahar sama ah dabadeed halkaasuu ka qaxayo wuxuu u noqday nugaal iyo barbarkaas muddo badan buu hawdkaa ku jiray adigu 2 sano ah jigjiga waa kan colka geliyey colkaa laguma guulaysan dabadeed wuxuu weeraray nimanka la yidhaahdo maaragtay habar yoonis iyo habar awaloo dhinaca isku haya galbeed ayuu ka weeraray nin shariifa ayaa u yimi oo wuxuu yidhi waxaan doonayaa siyaaro xaggee baad ka timi habar yoonis baan la joogaayo nin shariifaan siyaaran ka qaataa sanadkii qaalin ama 2 laysiiya war wejigaa gubaye aan maaragtay muxuu ahaayey ragku siiye xoolaha habar yoonis intaad siyaarada doonayso wax baryayso colkan ka kaxayso xoolo dhacoo 100 halaad la tago faafan iyo maaragtay muxuu ahaye la tag dhulka kan dadkiina degan yahay sidaasuu yeelay col baa lagu saaray habar yoonis waa colka la baxay dayax weerar colkaa geelal badan baa laga qaaday geelii 100 halaad baa laga siiyey baa laleeyahay ninkii la ohan jiray shariifka nin baa halkaa ka gabiyey subaxdaasoo wuxuu yidhi col shariifi wacayso calin reere dhacaaya cilmi geel lagu qaado hasiiskiina abuuradow cimri iyo kusimadoho oo ciribteeda ogaada dabadeed waa guureen oo waxay tageen buuhoodle markaasaa ingiriisku colku soo saaray oo la ogaaday dhaqdhaqaaqiisii warqado badan oo laga helay iyo warar laga soo tebiyey 1901 maalintay ahayd bishii janaayo ayaa dagaalkii u horreeyey ka dhacay meesha la yidhahdo haradhiig intaas wax dawlad u eg diin baynu fidinaynaa ma aha e wax dawlad u eg ama alabkeed leh lagama maqal hase yeeshee waxaa ka muuqanayay difaac diimeed iyo in diinta la bedelayo oo baadariyo iyo maaragtay kristan uu dhulka soo gelayo dagaalkaa gaaladu waxay u taqaan siduu qoray douglas jardin samara xaggana waxaa looga yaqaan haradhiig rag badan baa ku dhintay isku sanadkaas waxaa dhacay afbakayle caana xarigle kurgaraad odagooye fardhidin beerdhiga intaas ayaa sanadkaa dhacay وهاجا كدب هالكا عن كوتشوتشينا أو جامع عمر عيسى كوني سجال بقول مركي تاريخ هاي لا كوني سجال بقول يا أفرتي يدو تاجر وكهلا إثيوبيا تليانيكا أيا ويرحوجا إنجلس كسيد كاوكو قاضي تضبية طبانكي بشي أبريل سنة كوني سجال بقول يسدح دي سجال سركال يو بقول يسجال يسديت الناس كريو كلا أي إنجليز كلا قدلي sayidka ciidamadiisana iyagana waa la weeqay taasuna waxa ay keentay in heshiis nabadeed uu la galo ingiriiska iyo talyaaniga oo uu ku codsado in loo yeelo 4 arrimood waa ta koobaade in uu meel ku yeesho dhulkii talyaanigu xukumayay ta labaad inuu helo xornimo xagga diinta ta saddexaad inuu xornimo u helo iyadana xagga ganacsiga iyo ta afraad oo ahayd inuu xukumo dadkii isaga markaasi la socday 4 arrimood oo sayidku codsadayba afartaba waxa laga ogolaaday heshiiskii ka dhacay meesha la yiraahdo ilig bishii March 5 sanadkii 1905 hase ahaatee sayidka ololihiisii halkaasi kuma joogsan waxa uu ugu kulula dagaalkii xagga afka ee ay xambarsanaayeen gabayadiisu sida loo arkayba waxaa dabadeed dhacday in ingiriisku uu dib ugu soo gurto xeebahaasi oo uu hubeeyo qabaa'ilkii la jiray hase ahaatee taasi waxay dhalisay in qabaa'ilkii la hubeeyey ay bilaabeen inay ku kala aargoostaan utumo hore iyaga u dhex yaalay xilligaasi waxaa dhacay wakhtigii loo bixiyey حرام عنا أو معلول آد يأدو بأني أي دعدي رسمي أهان إنجليزكو سنتكي كوني سقال بقولي يلبية طبنكي وحا وكو قياسي إن محمية ديسي 3 ميلود ميل أهان دادكي كنولا أي دينتين وحا كلا تقول عضي إنو سيدكي أسو حوغيستي تاسو وحا كانتي إن إنجليزكو بدل استراتيجية ديسي وحا لاباب العيدة مأوهو قامدي نكي لأورنشر ريتشارد كوفيل أو يساوو دقال لك علي سيدك bishii August sanadkii 1913 dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yiraahdo Dulmadoobe oo bariga magaalada Burco ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la oran jiray Richard Coffey Sayid Maxamed Cabdalla Xasan gabay dheer ayuu ka tiriyay geerida Coffey Coffey loo jiitayaan dunida joogayne
adigaa jidkii lagugu waday jimiclaaneede jahanamo la geeyo wada aakhiro jahane nimankii jannu kacay warbay jiriin ishalleeyeen kuwaasa naarta joogiyo markaad janaanadii gaadhid siduu eebbahay ku jirrabay mari jawaabteede daraawiish jigraar nagama dayntaniyo jeerkeedheen jigta weerar bay goor barqaca nagu jifeeyeendheen ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jac iyo baaruudedhe weligiisba waa lagu jabshaa jilib dhigduulandheen haddaan lays jigraarayn tolkay laga jilroonaadheen waxay noo